Assalaamu calaykum. Waa maxay midgaan ama midgo halkeese uu ka soo jeedaa? Waa muuqaalkeena maanta daawade ee soo dhawow. Ereyga midgaan markii aan raadin iyo raacdin ku sameeyay ee aan si miir leh oo maangal ah uga fikiray waan ka waayay wax dhib ah oo ku duwan ama ku tahaadhan. Marka laga tago taariikhda macno la'aanta ah ee uu ku soo baxay iyo miir la'aantii ka dambeysay in uu unkamo bulsho idin lah loogu magac daro. Aan dib u milicsano dhibcaha taariikhda ee midgaan iyo meesha uu ka soo bilowday ee balmaankaaga fur oo maskaxdaada yaamaahi. Ugu horeyn waxaynu si miir leh oo maangal ah uga warrami doonaa meesha uu ka soo bilowday haybsooca qaabka daran ee lagula kacay ummad ka mid ah ummadaha Soomaaliyeed. Intaas kadibna waxaynu kala dhigdhigi doonaa ereyga midgaan. Waxaa la soo wariyaa in waqtiyada ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ay u qaybsanayeen laba bulsho oo kala hayn iyo kala hood duwan, yacni kuwa howlqabadnimo iyo karti iyo dhaqaale u saaxiib ah iyo kuwa dabato ah oo duurka ku jira. Waxaa la wariyaa in bulshadaas dhaqaalaha iyo xadaaradda ku caanbaxday ay lahaayeen hab maamul u gaar ah iyo weliba horumar joogto ah, halka beelaha kale ay ahaayeen dabato iyo raacato warankoodu wuxuu u gooyo uun ku welimaysta. Waxaa la sheegaa in bulshadii dabatada ahayd ay ka xanaaqeen bulshada kale ee horumarka iyo xadaaradeynta u saaxiibka noqotay. Bulshadan hab maamulka lihi waxay ahaayeen dadyo wax curiya oo wax ikhtiraca, waxayna waranka iyo qalabka ugaadhsiga u samayn jireen bulshada duurka ku jirta ee ugaadhsatada ah. Bulshadii ama qabiiladii dabatada ahaa ayaa kadib shir isugu yimid, waxayna ku tashadeen in ay la diriiraan oo dagaalba aan la galaan bulshadan ama qabiiladan kale ee horumarka sameeyay isla markaana isku filnaanshaha gaadhay. Kadib qabiiladii dabatada ahaa waxay weerar lagu riiqmay ku qaadeen qabiilkii noloshooda dabartay ee horumarka samaystay. Waxaa la sheegaa in warmihii sunta iyo mariidka lahaa ay ku gumaadeen qabiilkii qaniga ahaa ee qalabka ugaadhsiga u samayn jiray. Kadib markii ay jebiyeen ayaa intii soo hadhay waxay u oodeen meel xero ah, halkaas ayayna ku hor istaageen oo dooniga ay ugu diideen, waxayna la wareegeen habkii iyo hanaankii ay dhisteen ee ay noloshooda ku maareyn jireen. Intaas kadib ayaa qabiilkii xerada lagu ooday waxay u dhinteen tarab, waxayna u dhammaadeen oon, haraad, gaajo iyo surmi. Sidii ay maalinba mid nafta uga baxaysay ayaa waxaa isku soo hadhay tiro aad u yar oo ka mid ah qabiilkii qaniga ahaa. Dabadeed qabiilkii ugaadhsatada ahaa ayaa markii ay arkeen tarabta ay u nafbaxayaan qabiilku ayaa waxay halhays ka dhigteen maanta midgo, oo ay ula jeedeen mid ayaa dhintay. Xaaladdu waxay sidaas ahaataba tiro yar ayaa meeshii xerada ahayd ka badbaaday, kuwaas oo maanta noqday qabiilo la haybsooco oo lagu kibro. Ereygii ahaa midgo ee ay ula jeedeen mid ayaa dhintay ayaa gadaal dambe isku beddelay qabiil idil oo deegaanada Soomaalida ku filiqsan. Filiqsanaanta ay filiqsan yihiinna waxa sababay firxadkii iyo naflacaaradkii ay ugaga baxsanayeen xasuuqii lagula kacay. Taasna waa sababta maanta meel walba looga heli karo qabiilkaasi la dulmiyey. Ereygii midgo ahaa ayaa maanta lagu haybsoocaa qabiilkaas la halaagay. Waxaase yaab iyo ama kaag badan in ayna dadku ku baraarugsanayn taariikhda foosha xun ee ay awoowadeenu ku kaceen. Marka uu qof dhinto waxaynu nidhaahnaa waa uu go'ay, taas oo haddii wadar meel ku xayndaaban la is yidhaahdo ka warrama la odhanayo mid ayaa go'ay midgo. Sidaasna ereyga midgo ma ahan wax la qariibsado oo cay ah, mana aha wax la ceebsado sida maanta loo yaqaano. Waxaa jirta iyana taariikh kale oo ku saabsan halka uu ka bilowday haybsooca qaabka daran ee ka jira geyiga Soomaaliyeed, kaas oo isna u baahan in maskaxda la furo oo si maangal ah looga faalloodo. Waxaan maanta ka dharagsanahay qabiilada la haybsooca in ay weli ka reer magaalsan yihiin raacatada iyo ugaadhsatada laandheeraha isku tilmaamay ee santaagga iyo siloonaanta u saaxiibka ah. Sidoo kale marka laga hadlayo xagga maamulka iyo hoggaaminta waa ay ka soocan yihiin qabiilkani qabiilada kale ee dowladnimada u haysta
awlkayn daaqaysa oo u baahan in la ugaadhsado. Sidoo kale qabiilada haatan hoggaanka haya ma kala yaqaanaan dowladnimada iyo geela, oo geelii la kala dhici jiray ayayba u haystaan dowladda. taasna waa ta keentay in hadba kursi la kala dhaco oo hadba reer laga soo xulo midkooda ugu saaqidsan ee ugu sagirsan. qabiiladani waa dad hal abuur iyo wax soo saar leh. marka si miyir leh oo maangal ah loo barbardhigo qabiilada kale, waa dad ikhtiraca samaynta agabka aasaasiga oo idil sida kabaha, dharka, mindiyaha, gudmaha, faashashka iyo girgirayaasha. malahayga haddii ay iyagu hoggaanka inoo qaban lahaayeen, waynu ka bixi lahayn in fidhicilka naylo soo dhoofiyo. caqli xumada qabaa'ilka kale waa ta keentay qalabkii loo sameeyey ee la islahaa ha ku ugaadhsadeen oo noloshooda ha ku maaraystaan inay ku xasuuqaan walaalahoodii u soo sameeyey. muuqaalku intaas ayuu ku eegyahay daawade. la igsaar una sii sheergaree saaxiibadaada kale. halkani waa maxay channel ee nagu soo biir haddii aadan hore noola socon. mahadsanid.